bisada buulkeedii qasnada ahaa. Beri hore waxaa jiray guri bangala ah oo gaboobay. Waxaa ku noolayd bisad xukumi jirtay in ka badan 1,000 midh oo jiir ah. taasoo si khaldan u adeegsan jirtay bisadaha kale, ayadoo majara habaabinaysa una isticmaalaysa inay hanti qaaliyo u soo ururiyaan. Jiirkii marnaba muu jeclaysan wixii ay bisadu samaynaysay, dabadeedna waxay damceen inay bisada cashar u dhigaan. Isagoo bisada ka qarinaya ayaa jiir magaciisa la odhan jiray Miyir ayaa jiirar badan isugu yeedhay. Waxaanay si qarsoodi ah u sameeyeen khariidad been abuur ah, dabadeedna bisadii ayay u dhiibeen. Miyir ayaa yidhi, eeg, waxaan soo helay khariidadan oo shandad ku jirta oo taalla meesha aynu ku kaydino qaniimadeenna oo dhan. Bisadii ayaa tidhi, maxaad ka hadlaysaa? Miyir ayaa yidhi, khariidadan waxa ku yaalla dariiq kuu hogaaminaya oo ku geynaya qasnad qarsoodi ah oo ay macdani ka buuxdo. Bisadii ayaa tidhi, ma runbaa? Ii dhiib khariidadda. Bisadii ayaa maskaxda ka tidhi, tani waxay u eg tahay qasnad heer sare ah, anaa soo qaadanaya oo iska leh. Bisadii ayaa tidhi, waa yahay, dhammaantiin hadda iskaga taga meeshan, aniga ayaa maamulaya. Bisadii jiirka dhammaantii ayay kala eriday, waxaanay bilowday in ay u dhaqaaqdo xaggii qasnadda macdanta. Jiirku way garanayeen bisadu inay waxaa samaynayso, dabadeedna way ka sii horreeyeen iyagoo kolba xagga dambe ka soo eegaya. Waxay hubiyeen in uu dariiqa loo marayo noqdo mid dheer si ay bisadu ayadoo daalan u gaadho qasnadda macdanta. Markii ay bisadu gaadhay meesha, waxay ahayd mid aad u daalan. Mabay arkayn waxa yaalla hareeraheeda, laakiin waxay aad u doonaysay qasnadda macdanta, markaas waxay bilowday inay doondoonto. Aakhirtaankii bisadii aad bay u daashay, dabadeedna dhulka iska fadhiisatay meel ay ku taallo calaamad casi si ay ugu nasato. Bisadii ayaa maskaxda iskala hadashoo tidhi, meeshan calaamaddu ku taallaa malaha waa halkii ay qasnaddu ku aasnayd. Markaasay bilowday in ay qoddo halkii ay calaamadda casi ku taallay. tiyo awooddeedii dhan isticmaalaysa. Intii ay qodaysay waxay si lama filaan ah ugu dhacday god ku yaallay dhulka. Isla markiiba kolkay bisadii godkii ku dhacday, jiirka dhammaantii ayaa ku soo ururay godkii iyagoo xagga sare bisada ka soo eegaya. Bisadii waxay tidhi, i caawiya, yaa i badbaadin karaa? Miyir waxa uu yidhi, waxa aad maalmahan oo dhan samaynaysay wuxuu ahaa wax aad u xun. ficiladaadii xunxumaa ee aad galabsatay, iyadoo lagugu karbaashayo, waxaad godkan ku jiri doontaa inta noloshaada ka hadhay, adigoo ku dhibaatoon doona. Bisadii waxay tidhi, markaa adiga waxaan oo dhan ka dambeeyey soo maaha. Waxaan rumaystay wixii aad ii sheegtay, adiguna dabinka ayaad ii dhigtay. kuma dayn doona ee waa halkaad gashaa. Miyir wuxuu yidhi, keligay ma aha ee annagoo dhan baa waxaan ka wada shaqaynay si aanu u soo gabagabayno dunuubtii aad gashay, bal in aad iminka garato khaladaadkaagii, wixii ka dambeeyana aad wax wanaagsan samayso. Miyir iyo jiirarkii kale ayaa intay godkii dusha ka dabooleen ayay gurigii bangalada ahaa ku noqdeen. Miyir ayaa jiirarkii oo dhan la hadlay oo ku yidhi, waa in aynu dahabka iyo macdanta oo dhan dib ugu celinaa dadkii lahaa ee laga soo xaday. Jiirka dhammaantii ayaa isku raacay inay lacagta iyo macdantii oo dhan dib ugu celiyaan dadkii lahaa ee ku noolaa tuulada. Jiirkiina waxay aakhirtaankii noqdeen kuwo xor ah oo faraxsan iyagoo ka raystay bisadii. Waxay aad ugu riyaaqeen Miyir oo lahaa qorshihii lagu qabtay bisadan xun. Waxay madaxweyne ka dhigteen Miyir si uu u hogaamiyo jiirka oo dhan, sababtoo ah wuxuu keenay caqli iyo go'aan wanaagsan. Sheekada 3 doofaar ee yaryaraa. Beri hore waxaa jiray hooyo weyn oo doofaarad ah oo lahayd 3 doofaar oo yaryar, manay haysan cunto ku filan si ay u quudiso. Markii ay si fiican u koreen, waxay u dirtay dibadda si ay adduunka uga raadsadaan nasiibkooda.
Doofaarkii koowaad waxa uu ahaa mid caajis badan. Hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka lagu sameeyo. Taa beddelkeeda waxaan qaban wax aad u yaroo shaqo ah. Intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Haba yaraatee muu doonayn inuu shaqeeyo. Sidaas darteed wuxuu gurigiisii ka dhistay caws. Doofaarkii labaad waxa uu qabtay waxoogaa shaqo ka yara adag, laakiin sidoo kale isaguna waxa uu ahaa iska caajis. Hadda uma baahni in aan intaas oo dhan u socdo ilaa warshadda labanka. Uluhu way ka xoog badan yihiin cawska. Waxaan u malaynayaa in ay iyagu shaqada qaban doonaan, laakiin si kastaba ha ahaatee, aad baan u daalanahay hadda. Taa beddelkeeda waxaan qaba shaqo aad u yar. Intaa kadibna gelinkayga dambe oo dhan waan iska nasan. Wuxuuna ka dhisay gurigiisii ulo. Dabadeedna waxay bilaabeen heeso iyo qoobka ciyaar. Waanay iska boodboodeen oo ciyaareen maalinta inta ka hadhay oo dhan. Doofaarkii saddexaad waxa uu shaqeeyey maalintii oo dhan, oo waxa uu gurigiisii ka dhisay leban. Waxa uu ahaa guri adag oo dhammaystiran oo leh meesha guriga lagu kulayliyo iyo meesha qiiqa wax lagu kariyo ka baxo. Wuxuu u muuqday mid iska celin karaya dabaylaha ugu xooggani haddii ay dhacaan. Maalintii xigtay, yey ayaa doonay inuu ka tallaabo dariiqii yaraa ee ahaa meesha ay saddexda doofaar ee yaryar raadkoodu ku yaalay. Wuxuu ugu horrayntii arkay doofaarkii koowaad gurigiisii cawska ahaa, waxaana uu sanka la raacay waxa gudihiisa ku jira. Doofaar! Wuu qayliyey. Doofaarkaa yari wuxuu ii noqon doonaa casho macaan oon caawa ku casheeyo. Intaa kadib waxa uu garaacay albaabkii, waxaanuu ku qayliyey, doofaarka yarow, doofaarka yarow, iga fur aan soo galee, iga fur aan soo galee. Maya, 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 maya ma dhici karto. Xaqiiqatan waa bar kuma taal. Dabadeed yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigaagana dhulkaan la simi. Markaa wuu afuufay oo afuufay, gurigiina dabayshuu raaciyey. Yeygii afkiisii ayuu aad u kala waaxay, bahal qaniinyo ahna xoog buu ugu qabtay hoos. Laakiin doofaarkii yaraa ee koowaad wuu ka baxsaday yeygii, wuxuuna intii karaankiisa ahayd uga cararay si uu isugu qariyo guriga doofaarkii yaraa ee labaad. Yeygii wuu ka daba tegey isagoo eryaday suqduudkii yaraa ee gurigii ulaha ka samaysnaa. Wuxuu uriyey doofaarada gudaha ku jira. Mar kalena afkiisii ayaa bilaabay inuu dhareeriyo, isaga oo ka fikiraya cashada macaan ee ay u noqon doonaan. Dabadeed albaabkii ayuu garaacay oo wuxuu yidhi, doofaarada yaryarow, doofaarada yaryarow, iga fura aan soo galee, iga fura aan soo galee. Maya, 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 maya ma dhici karto. Xaqiiqatan waa bar kuma taal. Intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. Markaa wuu iskala xayday oo afuufay, gurigiina dhulka la simay. Waxaana labadii doofaar ee yaryaraa isa soo hor tubeen yeygii cabsida lahaa. Yeygii wuxuu isku dayey in uu labada doofaar isku mar qabto, laakiin wuxuu ahaa mid hunguri weyni qaaday. Daamankiisii waaweynaana waxba may qaban, wuxuuse noqday mid hawada qaniina. Labadii doofaar ee yaryaraana cagahay wax ka dayeen, waxaanay miciinsadeen qoobabkoodu intii ay kari karayeen. Yeygii wuxuu eryaday doofaaradii suqduudkii yaraa, waxaanay kaga baxsadeen dirqi iyo tuxun. Laakiin labadoodiiba waxay daf yidhaahdeen aqalkii labanka ahaa. Isla markiiba waxay qab ka soo siiyeen albaabkii ka hor intii aanu qaban yeygii. Waxay saddexdii doofaar ee yaryaraa isku urursadeen gurigii, iyagoo la gariiraya baqasho ay ka baqanayeen yeyga dibadda taagan. Yeygu maalintaas oo dhan waxba muu cunin, markaa wuxuu aad uga shaqaysiiyey amateedkiisii sidii uu u eryanayay doofaarada yaryar.
iminka oo uu urin karo saddexdooda ku jira gudaha dhammaantood. Waxa uu ogaa inay dhinaca kale ee labanka gidaarada ay ku sugayso qado wacan oo uu ku xafladayn karo. Dabadeedna yeygii wuxuu ku garaacay baabacooyinkiisii albaabka, wuxuuna yidhi, doofaarrada yaryarow, doofaarrada yaryarow, iga fura aan soo gale, iga fura aan soo gale. maya 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 ma dhici karto, xaqiiqatan waa barkumataal. Intaa kadib yeygii ayaa tusay ilkihiisii oo yidhi, waaban afuufi, haddana waan afuufi, gurigiinana dhulkaan la simi. Hagaag, waa uu afuufay oo afuufay, wuu afuufay oo afuufay, haddana wuu afuufay, afuufay oo afuufay, afuufay. Laakiin waa uu awoodi waayey inuu guriga dumiyo. Ugu dambayntii neeftii ayaa ka dhammaatay. Ugu dambaystiina wuxuu yidhi, ma awoodo inaan intaa in ka badan afuufo. Markii uu arkay inaanu awoodayn afuufintiisii oo dhan in aanu guriga dumin karin, yeygii run ahaantii aad ayuu u xanaaqay. Wuxuu ku dhawaaqay oo yidhi, waxaan ka soo geli doonaa meesha qiiqu ka baxo, waxaanan idinku dhex cuni doonaa gurigiinna dhexdiisa. Markii ay arkeen saddexdii doofaar ee yaryaraa waxa uu samayn doono, waxay ka soo laadlaadiyeen meeshii xaabada dabka dheri ay biyo ka buuxaan, waxaanay shideen dab olol badan leh. Markii ay arkeen in uu soo socdo yeygii, waxa ay daboolkii ka qaadeen dherigii karayay. Yeygiina wuxuu ku dhacay si toos ah biyihii karkarayay. Doofaarkii yaraa ayaa si dhaqso ah ugu xidhay daboolka. Taasina waxay ahayd dhammaadka yeygii weynaa ee xumaa.